السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناسا مال كستا نقد داونيسان حلي كستا ساعات كستا يدينتاي halkaad naga daawanaysaan waa Sanaanta Media aniguna waa Axmed Nuur Geeti. Cawada barnaamijka waxay noogu martay gudoomiyihii hore ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Trondheim ee dalka Norway. Barnaamijkani waa barnaamij aan ugu talagalnay inaynu ku wareysano community-ga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Trondheim ee dalka Norway. aan ku soo dhawaaw gudoomiye. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مقعي وعبد الناصر محمود حسن دقن مقالة تورنهام. أحمد وكما صنطها أي مانتين عن ماشان قوة كل الناس سنانتا ميديا وان وحفر بدن إسلاف سنة دولا يرادو سان وغال حالة سومالي دا مقالة تورنهام جارهان يو سيقود با ودك النروي سيدة يهين ما صنطها. أنا markii ugu horreysay waxaan ku weydiinayaa gudoomiye magacaada oo saddexan iyo halka aad ku dhalatay. magacaygu waa Cabdinaasir Maxamed Xasan magaalada Muqdisho xaafadda Yakshiid. waxbarashadeedii dugsiga hoose iyo dhexe iyo sare intaba Muqdisho ku soo qaatay oo dugsi sare iyo dhexe waxaan ku qaatay jaamaca Umm al-Qura jaamacadda Muqdisho dhigtay macallinna ka ahaa dhowr iskoolo kala duwan oo magaalada Muqdisho ku yaala Al-Fajri macallin jaamaca Al-Fajri ku yaalo iyo Uxud oo secondary school mathematics-na dhigi jiray. أنا قدومي waxaa jirtay gudoomiyihii hore ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Trondheim ee dalka Norway. waxaan rabaa inaan waxyaabo badan oo aan ka wareysan doono insha Allah haddii waqtiga noo saamaxo. markii ugu horreysay waxaan ku weydiinayaa xilligii aad gudoomiyaha lagu magacaabay iyo xilligii aad ka tagtay iyo waxyaabihii kuu qabsoomay inta gudoomiyaha ahayd iyo ilaa iyo inta ka tagaysay iyo waxyaalaha aan kuu qabsoonin. marka hore waxaan rabaa inaan bal si guud uga hadlo. anigu markii 2013 baan Norway imaaday ama magaaladan aan deganahay anoo ka imaaday dhinaca Talyaaniga. markaan magaaladan imaaday qaabkii ay u socotay iyo nidaamkeedii markaan dareemay inay baahi jirto in bulshada la isku xiro urur jaaliyad Soomaaliyeed oo markaas jirtay laakiin aan dhaqaaq far badan lahayn waxaan isku dayay inaan ka qayb qaato oon si free aan kula shaqeeyo aniga oo ilmaha yaryarka iyo dadka Soomaalida ka wada caawinaya dhammaantood casharada ay qaataan iskoolada ku qaataan. marka saas daraaddeed 2014 ayaa waxaa laga dhigay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Trondheim. markaan 2019 bishii saddexaad gabar ayadana ku wareejiyo kaleento ayadana hawshii meeshii kasii wado laakiin mar walba waa community oo ku jira oo magaalada Trondheim ku dhawaad 1000 qof oo family iyo isugu jiro dad caadi ah degan oo Soomaali ah hawlo badan u baahan laga qabto. aan su'aasha kale aan ku weydiinaa waxay tahay intaad gudoomiyaha ahayd ama ilaa haddeer ma jira wax dhibaatooyin aad kala kulantay bulshada Soomaaliyeed ama dhibaatooyin haysta ayaga Soomaalida oo u baahan in wax laga qabto? horta haddii la fiiriyo dadka Soomaalida oo waddanka ku nool ama si guudba bulshada Soomaaliyeed burburkii dowladdii dhexe iyo burburkii Soomaaliya wax far badan oo burbur oo xaggii qowskii iyo xaggii familki iyo xaggii akhlaaqdii wax walbaba ayuu dadka Soomaalida ku reebay badankood. laakiin magaaladan aan deganahay waa magaalo Nasan waa caasimad saddexaad ee waddanka Norway. waxaa horta mudan inaan sheego maanta waxaan leenahay hal community oo meelaha kale waxaa laga yaabaa inay community-yaal fara badan oo Soomaali leeyihiin laakiin meeshaan hal community baan leenahay oo Soomaali isku duuban. caqabadooyin ama waxyaalo qof walba oo gudoomiye noqdo ka hor imaanaya way jirtaa oo ay dadka Soomaalidu waa dad meeshaan markay imaadeen laga yaabo inay
qof walba inuu ku xiran yahay magaalada uu ka imaaday ama fikirkii magaalada uu ka soo baxay inuu ku xiran tahay. dadka Soomaalida wada degan oo dhan oo ka imaaday Soomaaliya iyo meel walba ka imaadayna community u dhexeeya. marka waxaan isku dayay inaan mar walbaba aan noqdo qofkii uu dhaxayn lahaa oo inta Soomaali ku wada hadasho mar walbaba isku wadi lahaa. ammaan iyo xumaan iyo cay labada waa la kulmaysaa wax walbaba, laakiin waa inaad dulqaadkeeda leedahay iyo inaad qaabkii bal dadka Soomaalida ee badda soo dhexgalay u badbaadin lahayd. marka taasaa niyadeyda mar walba sideen ka warqabno ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxay la kulmaan dhibaatooyin badan, balse kuma sii jirto dhinacan waddanka Norway. caqabado badan ayaa jiro ay sababaan dowladda ama communka ama consulka markaas la joogtiin. marka su-aashaan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay wax badana waxaa jira caqabado dhinaca guryaha ah, maadaama ay dadkii mararka qaarkood aysan helin guryo ama guryaha laga saaro. ayadan weligeen isku dayday inaad wax ka qabatiin? ururka Soomaalida intaan aniga guddoomiyaha iyo mar walbaba waxaa wada shaqayn wanaagsan naga dhexaysaa consultigan ama dadka magaaladan kamuunaha la dhahaa inta badan Norwegianka. wada shaqayn wanaagsan baa naga dhexayso, hadday tahay booliska, haddii ay tahay dadka oo baarlamaanka degmada. communitygan waa community fac weyn oo asaga laftiisa awood fara badan ku leh magaaladan degan oo isku dayna inaan meel walba lagu tala galno. dhowr caqabadood baa jirta marka waddankan marka ay joogto. midda koowaad waa qaybta guryaha, midda labaad waa qaybtii waxbarashadii oo dhalinyarada iyo Soomaalida, iyo midda saddexaad oo ah qaybta ilmaha dadka qaadanayo. communityga Soomaalida wuxuu mar walba u taagan yahay ama u taagnaa intaan aniga guddoomiyaha oon howlo fara badan oo arrimahaas ku saabsan aan galnay oo qaar badan oo ka mid aan ku guuleysanay. qaar badan oo ka midana laga yaabo inay duruufaha inay saamixi karin oo laga yaabo inay adag tahay kiiska ama qaabka loo galaayo. laakiin waa run waddankan waa laga yaabaa nolosha inay iska dhib badan tahay xagga guryaha, iyadoo ay tahay dhibka keenayso dadka inaan guryo qaadan karin oo gadan karin oo riba iyo waxay ka cararaan. laakiin waxaan isku daynaa qofkii noo imaado ama community la soo xiriiro inaan as soon possible inaan caawino qofkaas wadadii ugu fudud oo uu heli karo, ama inaan siino talooyin ama inaan ka caawino haddii uuna siiyo full power uuna siiyo inaan u qorno ama waraaqaan u dirno meelaha ay khusayso, aan raacno, aan u turjumno luqadii hadduuna aqoonin ama soo caawintaan u baahan yahay. intaan waan isku daynaa oo xagga guryahan ka caawinayna intii suurtagale. haddii aan taas kasoo tagnay dhinaca guryaha, waxaa carabka ku dhufatay dhibaatooyin kale ay jiraan dhinaca ama ay caan ku tahay waddanka Norway oo dhan, maahan oo keliya magaalada Trondheim. marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa sababa in maanta ama maalmihii hore ama waqtiyii hore ay dhacaan in ubadka Soomaaliyeed waalidiintooda laga qaato? haddii information sii kartid ayadana waa jeclaan lahayn waxyaabaha sababa. والله كلي hay-adda caruurta Soomaalida u yaqaan waxa ay ka qaadato Soomaali ma qaada ilmaha dhan oo ilaaliso qaadashada ma, laakiin ilmaha ilaaliso dhayso xuquuqda ilmaha ilaalina. waa hay-ad kulay saxiixii qaramada midoobay development children ayada qayb ka mid ah in ilmahaas si qaabkii lagu horumarin lahaa iyo lagu waxayn lahaa. waddankana sharci buu leeyahay oo shuruuc annaga waa nimaanay, laakiin hay-addan oo baana lahaa waa hay-adda ilmaha ay xanaanayso, xanaanada ilmaha. duruuf sababa jiro awgood oo markaas laga yaabo culture-kii labadii culture oo Soomaalidii haddaan Soomaali bas aan ka hadalna maanta, culture-kii dhaqankii annaga ku naqaanay Soomaaliya oo uu ka duwan yahay culture-ka meeshaan oo imaanay iyo qaabku yahay. marka ilmihii waxaa laga yaabaa inay iskool ama inay meeshii ay aadaan xanaanada ilmaha. cunugii waxaa laga yaabaa inuu waxyaalo aan annaga marka laga yaabaa waalidkaas oo anaga waxba u geysanayn, oo aniga 100% waxaan ubaa waalidiinta Soomaalida kolley way jecel yihiin ilmahooda ama way wada dhaqmaan, laakiin conflict culture oo laba dhaqan oo kala duwan. dhaqanka Soomaalida aan haysanay
oo laga yaabo information inay ka heleen qaldan, dad inay bixiyeen information qaldan ka bixiyeen, oo u baahan ayada lafteeda in loo sharaxo. waa ururku wuxuu u taagan yahay ururka Soomaalida, annaga waan la shaqeynaa baana iyo waan la shaqeynaa booliska labadaba si aan ugu sharaxana bal dadkan Soomaalida inay dhaqanka in la barto, la badiyo, kooraska la siinayo sida ilmaha loo xanaaneeyo, ilmaha qaabka loo wacyigeliyo. marka laakiin hay'adaas waa hay'ad u taagan inay ilmaha ilaaliso, ilmaha weliba ilmaha dilka loo geysto ama haddii kalento wax mentally ahaan maskaxdiisa ahaan wax u geynayo gaarsiiyo. laakiin waxay u baahan tahay in dadka inay fahmaan in wada shaqeyn la wada yeesho, community-da Soomaalida ama community-ga markaas ka jira magaalada lala xiriiro, si ay u yaraato markaas in cunugii markii maalan oo ka soo qaado kaliga ah haddii laga qaato way dhib badan tahay. laakiin hadda community ka tirsan tahay, community-ga wuxuu awoodaa inuu meelihii uu tago uu noqdo qof dhexdhexaad ka ah waalidkii iyo kuwii xanaanada ilmaha qaadanaya, ilmaha mise xanaaninay, inuu isku soo fikrad ahaan isku soo dhaweeyo. marka qaabkaasaan kolley waxaan rajeynayaa inay dadka inay kuushka ama kooraskaas ay qaataan, uuna bartana qof walbana dadkana meelaha lagu qabanayo baana waxyaalaha qabanayan uu tago si ay u fududaato inay fahanto horta qaabka u shaqeeyaan. waxaan kaloo rabaa su-aasha kale oo aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay sidaynu ka warqabno maalmahan dambe ama sanadkan aan lasoo dhaafay waxaa si adduunka dhan dhibaatooyin fara badan ku haya cudurka faafaha daran ee coronavirus. maadaama arrintaas jirto, balse waxaa moodaa haddaynu usoo noqono dhinacayna ummadda Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha marka ugu horeyso, waxaa moodaa weli inaysan u dhaga nugleen ama aysan aysan raacaynin talooyinka hay'adaha caafimaadka ee meelo badan iskugu imaanayaan, haddana aysan raacaynin talooyinka. dadkaas maxaa usoo jeedi lahayd? marka u horeyso horta COVID-19 waa cudur ama virus oo international oo adduunka oo dhan wada saameeyey. annaga community ahaan intaan u gelin midda guud ee Soomaalida, community-ga Soomaalida ee Tottenham wuxuu mar walba talooyin iyo waano u siinayaa, una mar walba dadka oo dhan ku wada waaniyo haddii aan leenahay website-ka ama mareegtada aan leenahay, iyo dhinac kastaba in cudurkan uu yahay cudur safmareene. boqolaal qof oo Soomaali laga yaabo in adduunka ugu dhinteen, inuu qofka inuu ku badbaadi karo inta uu Ilaahay baa wax badbaadiyo, laakiin inuu talooyinka howlwadeenada caafimaadka uu qofka qaato, qof walbana uu iska ilaaliyo uu qaato baashas afka lagu xirnayo mise mask aniga wanta mar walba antibacterial ayadana kii gacmaha la marsanayo ayadana mar walba qofku jeebku wato in gacmahaada ay nadiif noqdaan. anaga dad muslimna mar walba waan weysisanaa waana dhaqnaa, laakiin ina mar walba inaad nadiifsato, afkaadana ku xirnaado, qofkan ina distancega mise masaafada qofka inay dhexayso inay noqoto sida ay howlwadeenada caafimaadka ay sheegaan inuu 2 mitir ama mitir noqdo. intaa yareyn karta inaad bulshada dhex gashana ama inaad saameyn ku yeelato adigoo cudurkii qaba, laga yaabo inuu qof walaalka intaa qaadsiiso hadhow cudurkii sabab u noqdo dhiman lahaa, inaad isku daydo inaad wacyigelintuuna wado dadka iska ilaaliso. si guud dadka Soomaalida waxaan ugu baaqayaa haddii la yiraahdo walaalayaal cudurkan waa cudur dilaa waa aragteen meel walba oo dadka Soomaalida hadda haddii la fiiriyo statistikada oo waddanka Norway dadka qaxootiga ee ku nool mararka qaarkood dadka Soomaalida koow kale sababtoo u galaan waxay tahay cudurka uma qaataan si dhab ah. waxay haystaan inuu waxaan yahay wax oo iska socdo, iska hargab iyo waxaas inuu yahay, laakiin inuu cudurkan hadduu hadhow kugu dhaco waxaa laga yaabaa adiga inaad leedahay manaaco jirkaada difaac uu leeyahay xoog leh, laakiin inuu dad kalento waayeel ah gurigay joogaan ama haddii kalento waalidka ama qof kalento waayeel ama qof kale oo qof caamilayna inta u geyso inuu hadhow uu sababo in iyadu dhimato. marka inuu qofka feejignaan weyn la muujiyo ayaan kula talinayaa. waana dadka Soomaalida dhan ka wada shaqeeyaan inay qofkii sida sinaan hadda media oo kale u subinayo iyo dhammaan media iyo meel walba in dadka lagu wacyigeliyo ilaa cudurkan waa cudur dilaa ah, qof walba talooyinka caafimaadka iyo talooyinka dadka ka shaqeeya howlwadeenada caafimaadka ay sheegaan inay qaataan. taasaan kula talinayaa.
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay mudane guddoomiye, aad ayaan kaaga mahad celinayaa waraysiga sharafta badan aan idin na siisay. balse ugu dambeyntii waxaan rabaa inaa hal mid oo jamac guud ah oo ummadda Soomaaliyeed khaasatan kuweena Soomaaliya jira, maadaama maalmahan dambe uu soo ifbaxayo inuu cudurkii Soomaaliya kusoo siyaadayo. waxaa kaloo rabaa inaan talooyin haddii aad awood aad siisid dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee Soomaaliya joogto meel kasta ay ka joogaan, iyo qurba joogta Soomaaliya aada ee ka baxa wadamada Yurub iyo South Africa, maadaama ay markay halkaas tagaan cudurkii aysan qabin ama qaarkood ay suubiyaan warqado falsification inay ku baxaan oo sida PCR testiga ay Soomaaliya ku aadaan, aysan cudurka ayagoon iska baarin ama aysan ogaan cudurkan inay qabaan. marka maxaa kula tali lahayd dadka qurbaha jooga ee Soomaaliya aadayo iyo markay tagaan aanu nafsadooda quarantine aan gelin, ilaan sharci ku qasbaya ma lahan, balse waxaan rabaa talooyin caafimaad aad siin lahayd ummadaas maxay tahay? marka ugu horeyso Axmedow waa tan ugu muhiimsan oo qof walba Soomaali ah oo laga yaabo inuu dareemayo inuu cudur dilaa yahay fahansan inay tahay inuu ka tala bixiyo mar walbana uu sheego dadku sheego. laba talo ayaa meeshaas kaga tirsanaa hadduu Ilaahay yiraahdo. mid waxaan leeyahay dadka walaalaha ah ee qurbaha ka tagay, waxaan leeyahay war Ilaahay ka baqa oo cudurkan waa aragtan sida wadamadan hadda aan joogno annaga lockdown aan ku jirnaa. shaqayno waxaan ugu dameysay mar hore sababtaan u shaqayn weynaa anagoo shaqo heli karno inaan shaqayno ama in qof inuu baxo waxay tahay inuu dadka wayeelka ama dadka uu dhibanaha u noqon karo inay cudurkaas inuu ku dhaco inay si loo badbaadiyo qof walba waxaa leeyahay gurigaada joog oo iska yare. waxaa leeyahay marka walaalaha Afrika u safrayo asagoo iyagoo inuu cudurkan inuu jiro haddiiba ay noqoto inaad safartaan inaad waxa aad markaa safraysaan inaad ishubisaan oo si sax ah wadada wayga oo saxda ah oo tastiga ama tijaabada lasaga qaada inaad martaan. markaa wadankii tagtaana inayna bulshadii inayna samarkii u dhex gelin inaad 10 beri ama 15 beri inta awoodo inaad iska ilaaliso oo kasoo bixin guryahaada ilaa aad 10 beri ka bacdi aad kasoo baxayso. dadka Soomaalida ee Muqdisho ama Soomaaliya dhan jooga waxaan leeyahay war talooyinka howlwadeenada caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka ee sheegayso qof walba talada waa tala adigu anfacayso, waa tala adiga ku badbaadayso walaalkaan ku badbaadayo. waxaan leeyahay taladaas in la qaato oo lala shaqeeyo. wasaaradda caafimaadku ayada talay soo jeedinaysaa, taladay soo jeedinaa ama waxyaha caafimaadka dadka laga rabaa inay qaataan maahan ayaga awood uma laha in sida hadda meeshaan aan joogno oo kale waxaa laga yaabaa in lagu ganaaxo oo qofka hadduu iska baxo kale ama waqti intii lagu yiraahdo guriga joog aad socoto inaad jeebkaada ka dareento. laakiin Soomaaliya waxaa laga yaabaa inaad ka dareemi karin oo lagu ganaaxi karin oo awoodii ayna dawladda saas u leeyahay. laakiin qof walba oo mas'uuliyad ku saaran oo mas'uuliyad guud waartan maanta baryahan sida ummadda Soomaalida ay u dhamaanayso martiini loogu dhamaanayo meel walba la soo loogu dhamaanayo. walaalaha waxaan leeyahay Ilaahay laga baqo cudurkan waa cudur saf mareene inta guriga ay joogi karto joog ama intaad afkaada xiran kartana maaska iyo gacmaha inaad mar walba dhaqdo. distancing in qofka inuu masaafadaas inay dhaxayso ama mar walba ka fogaato oo 2 mitir haddii aad fariisanayso. wacyigelintana qof walba Soomaali in dhinaca positive inuu qofku inuu ka wacyigeliyo qof walba loo sheego liyaado cudurka waa cudur saf mareene. dawladdan ay badiso wacyigelinta iyo inay dad shaqaale fara badan oo voluntary in wadan magaalada lagu sii daayo magaalada oo warbixin dadka siinayso ayadoo qoraal ah in loo qeybiyo dadka waxyaalaha ay subinaan in wacyigelin guud in laga soo biyo meediyaha dhan iyo qof walba uu qaado. wuuna ku madsaya maanta Axmed barnaamijkan oo sinaanta media ayadana aad u qiimo badan oo kula talaa dadka Soomaalida dhamaantood inay la socdaan barnaamijyada ka baxayo iyo wacyigelinta intaba waxay talooyinayaan inay asaga u soo diraan oo asaga laftiisa wuxuu ku horumarin karo iyo wuxuu ummadda ugu qaban karo inay kala galaan. oo wada maasantiin waa Cabdinaasir Maxamed Xasan marlaad laga yaabo in dad qaarkood yaqaan Maal Cabdinaasir oo Fajr iyo Maal Jaamac soo dhigay mathematics waa maasantiin.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay macalin cabdinaasir waraysigaas oo sharafta badan aan siisay intaas waxaa noogu eg barnaamijkeen ugu talagalna wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed barnaamijkan barnaamij lamid intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa nabadgelyo insha Allah haddii barnaamijkan soo gaaro fadlan subscribe noo saara iyo share dadka kale gaarsiiya insha Allah si ummadda ugu faa'iideysto waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.